كحيجة ميكروفونك أحمد جبح سودو مستر أحمد. محمد عنعن أنا قدوميها جالية جبلان كوبنهاجن waxaan aad ugu faraxsanahay xafladda aan u qabanay ra'iisul wasaaraha Xamsa iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xafladana si fiican bay noogu dhacday ma sha Allah dadkii soo abaabulay xafladda iyo dadkii ka qayb qaatay aad baan ugu mahadinayaa xafladdan intaas ay caawin ugu ekaatay ra'iisul wasaarahana waxaan u rajaynayaa insha Allah inuu Ilaahay wadanka dhibaato ka jirtay inuu Ilaahay dhibaatada ka dulqaado oo daacad u noqdo aad baan ugu faraxsanahay ra'iisul wasaaraha soo dhaweeysiis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxaan ka rajaynaynaa waa nin oday ah oo Soomaaliyeed marka waxaan ka rajaynaynaa waa horan uu soo arkay khaladaadka hore uu sameeyay insha Allah inuu bedelo oo ma taqaanay wadanka Ilaahay noo nabadayo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Axmed Dhaqane waxaana ka tirsanahay golaha deegaanka ee magaalada Copenhagen xafladan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno ama ugu hambaliyno ra'iisul wasaaraha Xamsa Cabdi Aar waxaan u rajaynaynaa dhammaan in Ilaahay xilka u fududeeyo runtiina waa mas'uuliyad aad u weyn oo ra'iisul wasaaruhu uu qaaday waana ku faraxsanahay in macnaheedu intaas qof oo CV-gooda dhibtay uu ra'iisul wasaaruhu keligii ka soo dhaxbaxay oo laga doortay marka waxaan ku rajaynaynaa ra'iisul wasaare inaad xilkaaga si wanaagsan u gudato daacadnimana aad ilaaliso بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو محمد حسين الكعسة وحن هلكن وضعهم بريين يا رئيس الوزراء مدحوينها قدوميها برلمانكا لبدا قدومية أقل كسرية أقل كواسة حمناها برلمانكا النص وصاري مدحها شرفت له لما عند ولدي عصبيد بدأ شيء دولدي هوري أيان هلكن همبريو أقدر إياه أنا وحنا هاي وضعي جاليات oo reer Jubbaland oo odayaasha jaaliyada ee Copenhagen kamida waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay isbedelkaas yimid odayaasha gaamuray ee aqoonta iyo waayo aragnimada lagu tuhunsan yahay inay yihiin kuwii maanta ka saari lahaa baahida iyo dhibaatooyinkaas dadka rafaadsan ama colaad ama abaar iyo wixii la midka waan idinku ducaynaynaa in Ilaahay idinla kala qabto idin fududeeyo xilka aad qaadeen waxaan idinkula dardaarmayaa aniga ka ilka cas ahaan wax badan baa idinka hor imanaya dad isu caraysan dad iska baaxaysan oo haddii xil la bixinayo doonaya in xilka la siiyo dad qabiil isku haysta qabiil isku cayrsanaya dad yaa idinka hor imanaya waxaan idin rajaynaynaa kuwa iyagu is aamina ee aan iskhilaafin inaad noqotaan waxaan idin rajaynaynaa 10 isku qoysana keen oo Soomaali magaceedii sharafteedii karaamadeedii awoodeedii kuwii soo celin lahaa inaad noqotaan baan idin rajaynaynaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa okay waa soo afjaraynaa sagaalkay ballantu ahayd in la casheeyo waxaan ku soo gabagabeynayaa agaasimihii dhammaa ee xafladda Tariiq Haybe ku soo dhawo mikrofoonka الرحمن الرحيم مقعي واتريك هيبة وحن كتر سنة جالية جبلان مقالة كوبنهاجن وحن هالكان همبلية يبقادين وقدرينا دولة عصب الالطي قاسة رئيس وزراء حمس برا انه ما انت عاو كو قبني حفلة ان كنت اغيرين عدانا شعب كرير كوبنهاجن وان كلا هارين iyo hareerahoodaba waxaan leenahay رئيس وزراء همبليو waxaan kaloo u hambaliyeenayaa madaxweyne Xasan Sheekh oo asagana mar labaad record jabiyay oo taariikhda Soomaalida aan hore loo arag madaxweyne laba goor soo noqdo markii laga reebo adduunka aan joognay hore u maray Xasan Sheekhna waxaan leeyahay hambaliyo kulay waa wanaag iyo waxaad aad ugu geysatay waxa mar labaad bal ugu doortay xamsana sida anaga kulay ma naqaan aqoon u maleeyay laakiin kulay sida nagu soo gaadhay sheeko waa nin lagu kalsoon yahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa sida ummadda Ilaahay tirada badan lagaga soo dhex doortay xildhibaanadii
oo dhanna ay kulligood ay gacankooda siiyeen oo qofkaa horyimid uusan jirin inaad aduguna dadka sidaas shacabkaaga ku jecel ee saa kuu soo doortay ee ku marxabaysiiya adna inaad marxabaysiiso inaad Soomaali mid ka dhigto inaad isu dulqaadataan labadiinana wax kastoo caqabado oo badan idinka hor imaanaya waa la ogyahay Soomaaliya nahay waa iska dhaqankeena iyo kultuurkeena inaan iska hornimaadno ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwa isu dulqaata oo aan isu caroonin oo wada shaqayn fiican iyo isgarab istaag fiican sameeya Allah idinka dhigo haloo naxo shacabka abaaraha la dhacaya abaarta hal lagu dadaalo aad iyo aad waxaan uga hadlayaa shacabka taabalaysan ee Soomaaliyeed abaaruhu hayaan in wax iyagana loo qabto ilaahay waxaan idinka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu dawladda idin la garab galo ilaahay taas aan idinka baryaynaa waana idin hambalyeynaa waana idin soo dhaweynaynaa waana idinku faraxsanahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan iloobay oo kale inaan u mahad celiyo shacabka reer Copenhagen oo aan aad iyo aad isugu duuban oo mar walba weligoodba taariikhiyan soo dhaweeyay dadka oo xafladaha ku fiican aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhammaan qaasatan jaaliyadda Jubbaland oo gacan weyn ka geysatayna aad baan ayagana ugu mahad celinayaa jaaliyadda Jubbaland waadna mahadsantihiin